gudoomiye ku-xigeenka ururka dhakhaatiirta Somaliland Dr. Cabdiqani Xasan oo jaamac ayaa xariga ka jiray isbitaal cusub oo casri ah oo ay ku bahoobeen koox dhakhaatiirihii kaasoo laga sameeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. isbitaalkan cusub oo loogu wanqalay Baaxeer Hospital ayaa xafladii furitaanka waxaa ka soo qayb galay maamulka caafimaadka gobolka, dhakhaatiir iyo marti sharaf badan. Dr. Muuse Baaxeer iyo Dr. Cabdilaahi Walaaleeye oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay faa'iidada iyo waxtarka isbitaalkan cusub ee casriga ah u soo kordhin doono bulshada gobolka, waxaana ka mid ah hadaladoodii. marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dhakhaatiirta ka soo qayb gashay xafladan yar ee fudud ee aanu isku daynay inaan dhakhaatiirtii gobolka isugu yimaadaan meel wax laga wada qabsado bilow ah inaanu meel wada samaysano meel dhakhtar walba oo gobolka jooga oo ka soo qayb galo waa bilow aan isleenahay dhammaan dhakhaatiirta waan kala tashanay waan la ognahay waana nala ogyihiin biidnillaahi tacaala wuxuuna noqon doonaa in meel santar ah oo weyn oo dadku isugu wada yimaadaan dhakhaatiirtuna ka wada qayb galaan dhakhaatiir ajnabina ahna ay yimaadaan. markay dadku isu yimaadaan dhakhtaradu way iskabayaan way sare soo qaadayaan waxa weeyaan waa sida la doonayana in magaalada Burco imika alxamdulillaah imika waxaan idinku bishaareynaa caawadaan idinku bishaareynaa inuu bara saabka gobolku uu saxaaxay waraaqdii wax alla wixii dhakhtar Burco iyo gobolkan kama shaqeyn karo ilaa uu shahaado jaamacada soo oo dhakhtarada gudida ay leeyihiin Somaliland Medical Association la yiraahdo gudida u gaarka arintaasi registrationku uu qanciyo shahaadooyinkiisu inay yihiin maxay tahay asli ay yihiin. isbitaalkan ayaa noqonaya kii noociisa ay u horeeyay ee laga furo magaalada Burco.